gudoomiyaha golaha deegaanka ee cusub ee la doortay iyo gudoomiye ku-xigeenkiisa iyo gudoomiye ku-xigeenkii la tartamayay ee iyagu aan guuleysanaya dhammaantoodba ka warramay dareenkooda u mahad celinayna dadka reer Berbera ee dhammaan musharaxiintii soo tartamay oo codeeyay waxaanu leenahay waa mahadsantihiin in alaaliintii aad doorateen intii aad codeyseen ee aad codkiina ku soo saarteen iyo intii caawisay ku cod ku soo baxayba maanta xilkii mas'uuliyadda anaguna saaran yahay annaga shacbigaygu waa noo mid shacbigayaga degmada Berbera golaha deegaanku xisbina ma matalo reerna ma matalo waa gulihii deegaanka kitaabkaas gacanta loo saaray insha Allah waxaan ummadda u sheegnay oo ugu shaqeyn doonaa waxaan doonayaa in laba saddex qodob inaan uga faa'iideysto mahadnaqa Ilaahay subxaanahu wa ta'aala iyo mahadnaqa dadweynaha ka yimaado waxaan doonayaa doorashadu waxay leedahay hadallo fara badan oo qadaf oo dhaca ama saxa kaaga yimaado ama qalad kaaga yimaado waxaan doonayaa xildhibaanadii aan ku guuleysanin iyo xildhibaanada ku guuleystayba inaan cadeeyo ereygii aan hore u yeedhin ahaa meel ka dhacin ahaa golahana xaal baan ka siinayaa ereygaas wuxuu ahaa waa saxaafadda qaladka iskalo ee etigiska saxaafadda inay ilaalisaa muhiima waxyaalahan kuba habbooneen naga qofka laga duubaa waa qalad weeyaan laakiin ereygaas wuxuu ahaa aniga my personal shakhsiyadeeda la weydiiyay golaha leema weydiin ma soo sharaxaysaa ma leeyahay deena waxaan idhi waxaan maayarnimo ahay meesha ma taalaban qooli ereygaas qalad buu ahaa saxaafadana mas'uuliyaddeeda iskale inay ka saartaa bay ahayd waxaan leeyahay xildhibaanada golaha deegaanka waa kuwa aniga ay doortay waa kuwa ay doortay way aniga iyo gudoomiye ku-xigeenka aad iyo aad baan mas'uuliyad culus baa lana saaray waanu hambaliyeenayaa dhammaan xildhibaanada iyo degmada Berberaba runtii dareenka maanta jiraan waxa weeyaan dareen farxadeed warar badan oo iska hor dabaynaya jiray waxaan leenahay waxba kama jiraan runtii gacmahaynu isku qabsanaynaa dalkeena iyo degmadeena iyo deegaankeena waxaan u mahadnaqayaa meeyarka iyo meeyar ku-xigeenka la doortay Cabdishakuur iyo Nuur Cadde horta Nuur Caan baa uu noqdo Kanada iyo Mareykan baa la iga soo weydiinayo war halka lagu hayaaba la lahaa anna waxa la oonay mala lama hayee xildhibaanku go'aankiisa xaq buu leeyahay daaya waa kaftan intaasi meeyar ku-xigeenka waa soo dhaweynaya waan u mahadnaqayaa golaha la doortay iyo shirgudoonka ay doorteen muhiimaduna waxa weeye waqtiga lagu jiro doorashada ee kuraasida la kala riixanayo waxa jira dad isticmaala magacyo qabiil oo aan runtii jirin waa akriisana 10kii casho ugu dambeeyay baa la maqlaayay maanta baa ugu dambaysa kuraasidu baa la kala riixanayay kuraasida ku ilaahay qoray baa helay kuwa kalena waa rag la soo doortay oo xildhibaana oo iyaguna de kuraasi ku fadhiya elected boqolaal ka mid ah taageerayaasha Maayar Cabdishakuur oo hortubnaa goobta wax lagu dooranayay ayaa si xamadaysan u soo dhaweeyay maayarka ciidanka booliskuna waxay kala celinayeen boqolaal taageerayaashiisa oo maayarka ku soo qamaamay doorashadan ayaa maanta waxa ay soo afjartay loolan siyaasadeed oo kursiga lagu kala dhixanayay labadii toddobaad u dambeeyay oo si xoog looga socday magaalada xeebada Berbera Cabdisalaam Xariish Cusmaan TV-ga qaranka Soomaaliland Berbera